لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم. maanta waxaan inta u soo istaagnay inaan taageero buuxdo aan siino go'aankii taariikhiga ahaa ee ay gaareen ka soo baxay bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka oo ahaa qorshihii muddada dheer socday ee dayn cafiska Soomaaliya ahaa oo go'aan cad oo Soomaaliya oo dhan danteeda ah iyo gobonimada Soomaaliya ay ku jirto ka soo baxay xalay taageero buuxdaan u haynaa waana aad iyo aad ugu faraxsanahay haddaan nahay dawlad goboleedka Koonfur Galbeed. waxaan kaloo halkaan hambalyo uga dirayaa madaxda dawladda Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda wasaaradda maaliyadda madaxda dawlad goboleedyada madaxweynayaalkooda iyo wasaaradda maaliyadaha madaxda dawlad goboleedyada shaqadii wadajirka ahayd ee sida wadajirka lagu qabtay ee iskaashiga iyo Soomaalinimada lagu qabtay oo wajigeedii hore si qurux badan ku dhamaaday suurtagalay yaan uga mahadcelinayaa. waxaan ognahay oo dareemi karnaa inay ahayd mas'uuliyad aad u adag muddo dheerna soo socotay waqti badanna la geliyay go'aano aad u qaraar oo maslaxada Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliya hanaqaadkeeda ka mid ahna lagu fuliyay oo ahaa ilaa iyo 9 qodob oo aan hore u jirin la dhaqan geliyay si loo helo dayn cafiska. runtii waxaan kaga mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya oo waqtigiisa ugu badnaa geliyay in Soomaaliya deynta laga cafiyo intaas oo qodob oo 9 kaas qodob oo dawladnimada Soomaaliyana saldhig u ahayd in la fuliyo ay ku adkeyd dadka maanta Soomaaliyeed ayadana la fuliyay. waxaan leenahay hambalyo runtii sharaf iyo sumcad iyo wanaag iyo horumar bay u tahay Soomaaliya. horey baa loo socday waxaa muuqata dawladnimo iyo sharaf iyo karaamo iyo horumar laga gaaray dhaqaalaha. waxaan kaloo rabaa halkaan inaan uga hambalyeeyo shacab weynaha Soomaaliyeed guusha u soo hoyatay maanta inaan idhaa hambalyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.